shidaalka baryahan laga warhayo ee la hadalhayo ee walaalaha Turkida ah ay ka shaqeynayaan waxaan rabaa inaan idiin sheego 200 iyo ziyaado block ayaa badda Soomaaliya ku taala 3 block kamid waa waxa laga hadlayo la hadalhayo oo billions iyo billions iyo billions ku jira leeyahay waa 3 block 200 iyo dheeriya ayaa ka dhigay banaan dhulka Soomaaliyana intaas ka badana yaa ku taal iyadana marka laga hadlayo oil and gas khayraadka kala soo haray mineralska kala soo haray aad iyo aad u tiro badan kala duwan qaali ah kuwa qaarkood meelo tirsan oo Soomaaliya ka mid tahay ayaa adduunka laga helaa sabab aan faqri u ahaanay sabab aan macaluul ugu dhimanahay ma jirto oo aan ahayn dabeecaddeena iyo dhaqankeena iyo dhiiranaan la'aanteena waay cabsi in la isgeliyo balaayaa dhacayso haddaa inta u dhaqaaqdo dalku waa dumaya haddaa xagga u dhaqaaqdo bada inta kasoo butaacayso haddaa xagga u dhaqaaqdo waa la kala tegayaa wax jira ma aha mar horaan kala teginayna maanta maalin aan ka liidano oo badan aan soo marnay waana kala tegi weynay waana nala qaadan waayo waana la boobi waayo maanta maalmihii la soo dhaafay dhan maantaan ugu roonay inaan joognaa ugu fiicnay dowladaan leenahay caalamku aqbalay si sharci oo qaanuuni ah xuquuqdeeda inta ku raasata ku soo dhacsanaysa maanta maalin oo waana la kala qaybsanaa iyo waana la kala qaadanaa iyo dibaa loo noqonayaa iyo dalkaa burburaya iyo waa la kala tegayaa iyo war Soomaaliya yaan lidinku cabsi gelinin nin inaa hore u socotiin diidan waayo oo meesha aad joogtiin rabo lana kala tegi maayo lana burburi maayo sabab loo kala tagay sabab loo burburana ma taalo horaa loo soconaya baryahan waxaan dowladda federaalka ka shaqeynaysay goglo nabadeed wada tashi isla tashi yaan ka shaqeynayn meel fiican ayay marayaan niyad samaan badanaa ka muuqata dowladduna way samaysay dadkii Soomaaliyeed ee mas'uuliyiinta iyo madaxda ahay ee kala duwanaa ee goglaha ka soo qayb galayna waxay muujiyeen niyad samaan badanaa ka muuqatay dhiirigelin badan annagana ay noo siisay goglahaasi way socon doonaan la soo xiri doona inta qof Soomaali oo ra'yi qabo oo ra'yigiisa in la dhageysto uu rabo uu jiro waa furnaanayaan goglahaas haddii la yiraahdo ra'yigiisa waa la dhageysanayaa ayadoo qadarin ay ku jirto wixii suurtagal ah oo maanta noo suurtagal ahna waa laga qaadanayaa waana la dhaqan gelinayaa wixii biri suurtagal ahna biriyaan la sugaynaa wixii shalay nagu haboonaayo ka soo gudbinayna waxaan leenahay waa shalay waa ka soo gudubnay waa gadaal u noqomayno cabsi gelinta hala daayo mar kale waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo sanad guuro wacan sanadkan iyo sanadka dambe iyo sanado ka sii dambeeya intaba nabad iyo baraaro iyo barwaaqo aan ku gaarno sanadba sanadka ka dambeeya waa ka sii fiicannahay marqaatiyana laga wada yahay sanadba sanadka ka dambeeyay inaan ka fiicannahay sanadkaana waa fiicannahay sanadka dambana waa ka sii fiicnaanayna lagabana yaabee midnimadii horumar badan laga sameeyey oo maxaan ku rahaa wada xaajoodkii dib u furmeen oo wada hadalkii dib u furmeen inay bilaabato waxaan leeyahay walaalaha waqooyiga ayagana markooda dhiirada midnimadu wax ma bi'isee awood iyo haybad iyo sharaf ay soo kordhidaaye dhiirada shalayba adikaa dhiirateen maantana dhiirada annaguna waxaan diyaar u nahay wixii idin dhaqa oo midnimadii inaad nala qaadataan suurto gelinayaa bannaanka naga yaallo hadday talo tahay hadday xukun tahay hadday maxaan ku radaa ra'yi kala tahay bannaankay naga yaallaan bannaankaan la taaganahay